labiyo afartan sannadood ayaa ka soo wareegtay socdaalkii lama filaanka ah ee madaxweynaha dalka Masar Maxamed Anwar Sadat uu kaga degay caasimadda Yuhuud ee Tel Aviv kaasi oo xilli aan la filaynin iyo mid aan saadaasha lagu darsan ahaa. Anwar Sadat ayaa 19 bishii November 1977 ka degay magaalada Tel Aviv waxaana uu socdaalkaasi ku beegmay sanad iyo maalmo kadib dagaalkii weyn ee Carabta iyo Yuhuudda dhex maray kaasi oo saameyn ku yeeshay wadamo badan oo bariga dhexe ku yaala. inkastoo Anwar Sadat uu go'aankan nabad u raadinta qaatay maalmo kadib markii xabad joojinta dagaalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku baaqay dhaqangashiga, waxaana sida taariikhyahanada dunidu qoreen Anwar Sadat baaritaano badan oo uu sameeyay iyo xog ururin uu ku ogaaday in saraakiisha sarsare ee ciidamadiisa iyo xulufaysiga reer Carbeed ay dhalanteed iyo waxba kama jiraan u noqday guulna aan laga gaari karin. madaxweyne Sadat ayaa xilligaasi ka degay magaalada Tel Aviv. xaaladda siyaasadeed ee dunida labaduba aad ayay uga kala duwanaayeen casrigan, waxaana sida taariikhyahanada reer galbeedku ku doodayaan Anwar Sadat uu soo afjaray 3 dhaqan oo diidmo ah oo Carabtu la hortageen Yuhuudda, kuwaasi oo kala ah nabad la qaadan mayno, aqoonsan mayno, u tanaasuli mayno Israel. dhinaca kale Carab badan iyo khubarada Islaamka ayaa guusha kaliya ee Sadat uu socdaalkaasi nabadda u la qaatay Israel markii ay ka hadleen sheegay inay kaliya uu joojiyay dagaalkii iyo dhiiggii shacabka reer Masar, balse uu awoodda Carabta wiiqay meeshana ka saaray isku duubnidii uu dhisay madaxweynihii isaga ka horreeyay Jamaal Cabdinaasir. dhinaca Masar marka laga eegayo waxa Anwar Sadat uu helay in loo celiyo dhulka Masaarida ka maqnaa ee gobolka Sinai. waxa kale oo uu kasbaday kalsoonida reer galbeedka iyo in dhaqaale loogu deeqo dalkiisa. socdaalkanina waxa uu cadho ku abuuray Carabta, mayna dhicin ballanqaadyadii uu ka hor akhriyay golaha baarlamaanka Israel, laakiin waxaa lagu xasuustaa socdaalkani soo dhaweyntii weyneyd ee Israel Mareykanka iyo reer galbeedku u sameeyeen Anwar Sadat. waxa kale oo lagu xasuustaa inuu noqday hogaamiyihii ugu horreeyay Carabta iyo Islaamka ee Yuhuudda aqoonsada, baarlamaankoodana ka hor khudbadeeya, heshiis buuxana la galay nabad iyo wada noolaansho u ballan qaaday. ficilada cadhada leh ee lagaga jawaabay heshiiskaasi oo madaxweyne Anwar Sadat la galay Yuhuudda waxa ugu weynaa dilka isaga laftiisa lagu khaarijiyay qaar ka mid ah ciidamada militariga ee dalkiisuna ku sadqeeyeen 6 Oktoobar oo ah maalintii lagu xasuusto guusha ciidamada Masar ay ku jabsadeen Yuhuudda kagana tallaabeen difaacii adkaa ee Baarleefka loogu yeedhi jiray. dhinaca Israel waxa isagana la khaarijiyay oo Yuhuudda xaq jirka ahi ku guuleysteen inay dilaan ra'iisul wasaare Isxaaq Rabin oo isagu ahaa qofka kaliya ee laga rumaysan yahay inuu ugu dabacsanaa Yuhuudda. waxa iyaguna ka sii daray dhibaatada reer Falastiin ee Yuhuudda ku haysay, waxaana xasuuqyo tiro badan ay Israel ka geysatay Lubnaan, Gaza, Khaliil iyo meelo kale oo tiro badan, kuwaasi oo dhammaantood Masar markhaati iyo saaxiib wanaagsan oo Israel taageera ay ka noqotay. madaxweynaha isaga ka dambeeyay ee Xusni Mubaarakna uu sii waday ilaa welina aan joogsan.